Fiidiyowgan waxaan uga hadlaynaa dhalinyarta qaar oo kala yara garan waayay haweeneygan lacagaha ay ka shaqeynayeen inta ay la eg tahay iyo qaabka ay ula bixi lahaayeen. Marka qaabka ay ula bixi lahaayeen iyagu fiidiyow kale oo aad u wanaagsan oo ka faahfaahsanaan rabaa inaan ka sameeyo. Laakiin hadda waxa ugu muhiimsan oo fiidiyowgan shortigan u duubayo waa hal arrin oo muhiim in la fahmo. Arrinta muhiimka waxa waaye haweeneygan markaad kugu jirto gudihiisa halkan sida kaaga muuqanayso waa credits. Credits waa points ama waa dhibco. Dhibcahan lacagtii rasmiga ahayd ma aha, waa lacagta dhibcahan ayaa loo bedelayaa oo waxay noqonaysaa lacag. Aniga hadda waxaan isticmaalayaa application kale oo igu xiriirsan oo Jamtaska la yiraahdo, sida awgeed intaan qiimo ahaan intay u dhiganta halkan kama muuqanayso. Laakiin markaan application-ka toos u dhex tago oo qaybta application-ka aan tago, lacagta credits halkan markay ku qoran yihiin lacagtan halkan ay ka soo muuqanaysaa. Tusaale haddii aan ku tusiyo tusaale halkaan aan tagaya qaybta wallet-ka uu leeyahay application-ka waa kana. Tusaale halkan waxay igu jirtaa 700 oo credits. 700 oo credit waxay u dhigantaa hadda $0.7, macnaha 70 senti ay u dhigantaa. halkaas kaaga muuqanaysaa mar walba. Marka aad rabto inaad ogaato lacagta kugu jirto mar waliba lacagta halkan ku jirto waa dhibcaha ama coins-ka ama credits-ka aad haysato, laakiin qiimo ahaan halkay u dhiganto halkaas ay ku qoran tahay, halkaas ay kugu soo qormaysaa. Halkan haddii aad fahmin 70/20 ay ku qoran tahay, macnaha halkan 70 senti markii 20 gaarto ayay lacagtaas aad la bixi kartaa. Haddaad hal kale si kale aan kugu dhigo, halka kaaga muuqanaysa payout-ka calaamadan buluug oo meesha kaaga muuqanaysa way soo soconaysaa ilaa halkan ay ka soo buuxsanto ayaa payout-kaada uu ku xiran yahay oo ka dhinaanaysa. Marka halkan aad soo gaarto halkan 3.6% ay ku qoran tahay, anay ugu qoran tahay adka badan laga yaabaa ku qoranto. Halkan markay soo gaarto ayay ku buuxsamaysaa oo lacagta la bixisa. Lacagta la bixideedana fiidiyoo kale oo aad aga faahfaahsan horena waan u sameeyay, haddana mid kale oo ka sii update aan sameynaya haddii la raalli ka noqdo, si ay kugu sahlanaato in marka aad payout gaartaba aad hore oo la baxdo. Si dhan kale dhalinyartii is diiwaan galisay application-kan lacag ka sameynaysay, dhalinyar badan progress aad u badan gaaray isla markiiba $2 sii maraya maasha Allah. oo lacag dhalinyarta qaarkood waxaan arkay dhalinyar $10 ku sii dhow $5 oo credit-ka ahayd oo qofku hore ka sii qaadanayay, iyo xogaa kale oo $2 iyo $3 kale oo lagu sii daray dhalinyar $10 ku sii dhowna waan arkay oo iyagana waan arki karaa. Marka maasha Allah waaye, waxaan rajeynayaa inaan laga caajisin oo telefoonka inuu iskaga jiro wax dhib ah ku keenaysa ma jirto. xilliga doontana waa iska xiri kartaa, waan iska saari kartaa waliba daarto xitaa hadda u baahato programka marka aad waa iska saari kartaa, marka tan waa ku soo shuban kartaa. Kaliya email-ka aad ku samaystay ayaa muhiim ah inuusan ka lumin. Marka waxaan rajeynayaa qaybtan in la fahmay, waana qaybta ugu muhiimsan oo soo galay. halkan fiir mar waliba waa halka lacagta ay kugu qoran tahay, halkan waa credits-ka aad haysto intay la eg yihiin. Marka haddii lacala aad ku xirato application-kan Jamtaska aad ku xirato Jamtaski, isaga wax kale ma aha 10% wixii halkan aad ka hesho ayaa 10% ay ku siinayaan. Marka haddii ay suuragal tahay inaad ku wareertana waxba isku wareerin, hadda waxba ku xiran. Haddii aad malaynayso inaad fahmi kartana waad ku xiran kartaa, isaga kuu soo bandhigayo oo ku dhahayo ku xiro. wax kale uma baahna. halkan off-ta ah, halkan bes ayaa on ka dhigaysaa. halkan hadda off haddaan ka dhigo, haddii aan off ka dhigo kaasa application-kan bes ayaa igu jira oo kan kale ii shaqeynaya. haddaan on ka dhigana ka bacdina hadhowda wuxuu dhahayaa ku xiro, saa ii soo bandhigaya inaan ku xirto oo mar walba dhahaya aan Jamtaska ku xiro. haddii marka aan ku xirtana wakaasa waa ii imaanaysaa lacagtii 10% aan helayay. hadda aad ay u yareen waagi hore 50% ayaa la helayay. marka 10% aan heli lahaana waan helayaa haddaan soo ku xirto aan u wareegto xagiisa. in la fahmaan rajeynaya. tusaale hadda meeshan waxay ku jiraa 36,600 oo credits. 36,600 oo credits ayaa halkan igu jiraa. marka lacag ahaan waa $36 almost. intay u dhiganto lacag ahaan intay u dhiganto waa $36. haddii aad marka aad fahmi wayso, mar walba waxaad fiirinaysaa qaybta payout-ka aan ku tusinayay lacagaha kugu qoran baad fiirinaysaa insha Allah tacaala. intaas in la fahmayna waan rajeynayaa. haddii aad gaarto lacagta $20 la bixideedana fiidiyowada hore oo aga sameeyay haddii ku anfici waayaan wali qaybta comment-ga noo ballan ah waad soo weydiin kartaan, waana ka jawaabayaa. Assalaamu calaykum.